بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ونأكسن maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii 11aad 2019 maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka kooban 5 xubnood waxay u fadhiisanaysaa dacwad maamul oo u dhaxaysa xisbiga ku-meel-gaadhka ee himilo qaran oo dacwoodaha iyo hay'adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliyeed oo dacweysana taariikhdu markii ay ahayd 28 bishii 9aad ayaa waxa cabasho soo gudbiyay maxkamadda sare looga cabanayo go'aan maamul oo la sheegay inuu ka soo baxay hay'adda duulimaadka rayidka ah 16 bishii 10aad 2019 ayaa maxkamadda sare waxa ay furtay galka uu nambarkiisu yahay 80 oo dacwad maamul oo u dhaxaysa dhinacyada aan sare ku soo sheegay labadii bishii 11aad 2019 oo ah bishan aynu hadda ku jirno ayaa xafiiska garyaqaanka guud oo metelaya hay'adda duulimaadka rayidka ah waxay soo celiyeen jawaab celintii cabashadii laga soo qaatay go'aanka maamul ee la sheegay inay soo saartay hay'adda duulimaadka rayidka waxaynu maanta u fadhiisanaynaa maxkamaddu u fadhiisanaysaa dacwadaas waxaan insha Allah taala dhinacyada dacwadaha iyo dacweysanahaas ay maxkamaddu siin doontaa fursado siman oo waqtigoodu aanu xadidi mayno daqiiqadaha ama saacadaha ay dhinacyadu soo jeedinayaan doodooda laakiin waxaan siin doonaa mid walba inta uu ku dhameysanayo doodiisa inta aynaan u gudagelin waxaan rabaa inaan sheego qodobo kooban oo aynu u baahannahay inaynu ku dhaqanno dhammaanteen inta ay socoto fadhiga ama garmaqalka ay maxkamaddu ku dhageysanayso dacwadaasi maamul ay u fadhido waxa koow ah inta ay markaa maxkamaddu furanto in la joojiyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa soo gelitaanka iyo bixitaanka hoolka ay ka socoto maxkamaddu lama ogola sidoo kale gudaha hoolka ay maxkamaddu ka socoto lama ogola in laga sameeyo wax dhaqdhaqaaqa sidaas oo kale lama ogola mana banaana in la isticmaalo wax telefoon ah nooc kasta oo ay yihiin haddii ay noqoto hadal haddii ay noqoto sawir iyo haddii ay noqoto duubid wax la duubo intaba sidoo kale waxa mararka qaar dhacda in ama la sacbiyo ama la qayliyo iyaduna waa reebantay haddii ay timaado duruuf ama xaalad degdega oo laga maarmaana ay ku timaado qof kamida dadka fadhiya hoolka dhageysiga dacwadda waxa uu furan inuu gacanta taago una sheego maxkamadda xaalad degdega si loo fasaxi karo maxkamaddu waa inoo furan tahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin haddana waxaan siinaynaa dooda dacwoodayaasha marka ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم محكمة شرفت الأدية اليوم سنتاي runtii waxa weeye waa horumar la gaaray in maanta dawladda hay'adaha dawladda iyo dad shacab dacwad u dhaxayso in maxkamaddu ay ka garnaqayso xilli dhow arintaasi suurtagal ma ahayn marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo kordhiyo oo aan dadku inta ay wax kale ay xaqooda ku doonan lahaayeen in maxkamadda loo soo doonto mudane gudoomiye markaan u galo istartaagayna waa laba qaybood waaye qaybta hore oo dacwadda ku saabsan iyo qaybta hore oo qareennada iga soo horjeeda ku saabsan qaybta labaad marka waxaan soo hormarinayaa qaybta ku saabsan dacwadda dacwaddan markayna soo gaartay waxaa na soo gaaray dacwad maamul oo soo jeediyey
qareen cabdullaahi iyo saaxiibadiis kadib markay maxkamadda noo soo dirtay waxaan baarnay go'aanka maamul ee laga dacwoonayo waxaan weydiinay hay-addii ay la dacweynayey jawaabayna soo siiyeen waxaa kale oo aan maxkamadda soo weydiinay 22 bishii 10aad inaan maxkamadda laftigeeda aan idhaahdo wax go'aan haddaad haysaan inaad noo soo gudbisaan si dacwadda muuqaalkeeda iyo waxa ay ku saabsantahay isku ekaadaan waxaa soo baxday inuusan jirin wax go'aana maamul oo la dacweyn karo dacwadda waxaa bays u ah waraaqahan waxaa leeyahay notom ayaa la yidhaahdaa notom go'aan maamul maahan go'aanka maamul marka qaanuunka la darsayo waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu buuxiyo marka notomkan waxaa lagula macaamilaa ay hay-addu ku maamushaa hawada waxaana lagu macaamilaa kambaniyada cid kasta ha lahaato runtii waxaad ogtihiin in mataqaanaa Soomaaliya aysan diyaarado lahayn diyaaradaha dalka ka shaqaystaahay waxaa laga leeyahay dawladaha deriska xataa kuwa Soomaalidu sheeganayaan dawladaha deriska laga leeyahay marka diyaaradaha ka shaqaysto codsi ay soo qortaan ay ku soo degi karaan dalkan waxaa lagu maamulaa marka hawada sidaa la socotaan waxaa dhacay arrimo la xiriira siyaasadda ayaa waxay ka dhaceen koonfurta Soomaaliya hay-addu marka waxa ay soo saartay waraaqahaas oo aan maxkamaddu soo gudbin doono notom ayaa la yiraahdaa hay-addu waxay kula macaamishaa hay-ad caalami ah oo maamusho hawada caalamka ayaa la ogeysiiyaa xaaladaha duulimaadyada dalka ka jiro marka notomkaas waxa uu sheegayaa lama hadlo rakaabka lama hadlo mataqaana wuxuu la hadlaa sharikadaha ka shaqaysta oo dhammaantood ajnabi ah oo aan wax Soomaaliya ku jirin iyo hay-adda caalamiga ee ICAO la yiraahdo oo u qaabishan international UN ka qayb kamid ah oo u qaabishan mataqaana hawada Soomaaliya ayaa maalin kasta waxa loo sheegaa wax isbedelka ayada oo nabadgelyada siyaasadda midnimada qaranka iyo integrity dalka ayadoo la fiirinayo ayaa waxa lagu la macaamilaa waraaqahaas waaye waraaqaha ay dacwadu ku beesgareysata marka waraaqahani go'aan maamul maahan go'aan ku socdo muwaadiniinta maahan waxa ay ku socdaan kambaniyada ka shaqaysta dalka iyo hay-adda ICAO oo mas'uul uga ah UN-ka in ay la socoto xaaladaha garoonada caalamka marka waxaan leenahay mataqaanaa taas marka waxaan leenahay go'aan maamul lama hayo dacwadu ay soo gudbiyeen qareenadu waxa ay ku beesgareysan tahay laba qodob oo dastuur ah waa qodobka 22aad iyo qodobka 23aad dastuurkana waxa fasiro maxkamad dastuuri ah ee maxkamadaha caadiga ah ma fasiraan marka taas hadda mataqaanaa waxaan leenahay in dacwadda dabeecadeeda dacwadana waxa magaca u bixiya dabeecadda ay leedahay haddii marka mataqaanaa ay la soo gaabiyo oo qof kasta yiraahdo maamul waaye maamulku waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu soo buuxiyo go'aanka maamul administrative decision marka qaanuunka la darsayo wuxuu leeyahay conditions uu leeyahay haba yaraatee wax hal condition oo la hayo male kadib markaan baarnay hay-addu warqadda ay noo soo gudbisay oo soo gudbi doona maxkamadda haddii loo baahdo waxa ay sheegeen wax go'aan ah oo ka soo baxay hay-adda inaysan jirin oo ku saabsan kambanigan dacwoonayo iyo cidda wakiilka ah marka waxa kale oo ay noo soo gudbiyeen warqadaas oo ah diyaaradihii duulay maalintaas oo ka baxay xamar ee u baxay Kismaayo waxa la socotaan in maraaxil badan ay soo martay oo la yiri diyaaradaha aadayo Kismaayo inay soo maraan xamar kadib saa Kismaayo ku aadaan notom kale ku xiga wuxuu ahaa diyaaradaha u baxayo koonfurta dhinaca Kismaayo waa inay 24 saac ka hor ka soo codsadaan hay-adda dawladda hawada ogolaasho waxaan qiyaasayaa marka notomka laga dacwoonayo waa midkaas marka sharikadihii soo weydiistay oo maalinta dhoofay waa kuwaas sharikada ay raacayeen dadkan siyaasiyiinta meesha lagu sheegay waxa ay ka gaabisay inay weydiisato ogolaashadaas hay-adda marka dacwadani waxay ahayd hadiiba ay dacwo jirto inay sharikada iyo u dhaxayso hay-adda dadka private-ka ah dan aan toos ahayn ay ku leeyihiin mataqaanaa duulimaad waayo hay-addu lama macaamisho rakaabka waxay la macaamishaa sharikadaha
marka waxaan codsanayaa go'aankan go'aan maamul maahan in mataqaanaa oo maaragtay ayada oo cadaaladda la eegayo sharciga maamulka dalka la eegayo maxkamaddu ayadaa nooga aqoon badan in go'aankan uu haba yaraatay buuxin shuruudihii go'aanka maamulka oo qodobada uu ku salaysan yahay oo yahay qodobo dastuuri ah kuwaasna ay awood u leeyihiin fasiraadeeda maxkamadda dastuuriga intaas waxaan uga baxayaa kiiska qareennada markaan u gudbiyo qareennadan waxaa madax u ah cabdullaahi maxamed jimcaale iyo saaxiibadiis asagaa tiimka hogaaminayo cabdullaahi maxamed jimcaale intaan ogahay waa sarkaal civil servant ka tirsan marka ma qabo haddii aysan maxkamaddu hayn warqad rukhso ah oo uu cabdullaahi u soo gudbiyey si uu u isticmaalo xirfadda qareennimada cabdullaahi sharciga uma ogolo inuu qareen ka noqdo maxkamadaha marka waxaan codsanayaa iyadana dacwaddaas qareennada soo gudbiyey inaysan ahayn qareenno leh fasax inay ku shaqeeyaan qareennimada marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa maxkamadda aad iyo aad ay u mahadsan tahay waxaan codsanaynaa arrintaas in lagu daro maxdarka lagu qoro maxkamadduna ay qaraar ka soo saarto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku wareejinaa qareennada بسم الله محكمة الشرف لو ما لغما وقلا وأواد ما يسنسوما صرت أجيني أوكي هاي محكمة الشرف لو ما سنتهاي مدن قدومية مدن قرص ريال صاحب ذاك اللي يسوي جيدا واحد بدن مرة بينا كدرو مقعي حسين حسن عبد الله قرين كترسن حفيز قريقان كجود قدومية هرو شاقي waxa yar oo rabnaa iftiimino waa in la kala cadeeyo nooca ay dacwadu tahay dacwadu noocay tahay haddaan la kala saarin macnaha duruucda looma gudbi karo qodobka shanaad ee ka hadlayo mas'uuliyadda awoodaha maxkamadda sare ee xeerka nidaamka garsoorka 62 wuxuu u sheegaa dacwadaha laga furto oo idaariga ah ama maamulka ah inay noqdaan go'aan ka soo baxay maamul oo kaba dambeys ah marka haddaysan jirin go'aan maamul ka soo baxay oo kaba dambeys ah macnaheedu waxa waaye dacwad lama furi karo meesha marka waxaa nooga muuqata in dacwada nuuceedu aysan noo muuqan sida gudoomiyaha uu sheegay saaxiibkay bad dastuuri ah la xigtay marka maxkamadda sharafta waxaan ka codsaynaa intaan duruucda loo gudbin in nooca dacwada noola sheego aad ma santiin aad ma santiin waxaan hadda siinayaa dhinaca dacwadayaasha qareennada si ay uga jawaabaan intaas maxkamaddu waa mahadsan tahay saaxiibadeena waa mahadsan yihiin waxaan rabaa horta inaan ka jawaabo arrinta runtii aan hadda loo fadhiyin oo aanan ka sugaynin saaxiibka gariiqaankoodu inta ka dhaqawaajiyo oo aniga gooni ii weydiin karo aniga si kale u hadli karo xafiis gariiqaanka qareennada weydiin karo laakiin inuu ka dhigo dacwad maxkamad horteed horta aadaan uga xumahay aniga sax sarkaal shaqaale dowladeedan ahay laakiin ruqsadaydii galka waxay ku jirtaa ii yaalla xafiiska qareennada taas xaggaasaa laga baari karaa laga ogaan karaa oo markaan qaadanayo abukaatanimo dabaysa warqaddii ruqsadaan keenay saasaan ku qaatay shahaadada abukaatanimada marka waxuusan ogeyn inuu hadda aniga maxkamadda horteeda iga dacweey aadaan uga xumaarta arrinta labaad annaga waxaan ka soo dacwoonnay waa qaraar waa go'aan waa qoraal dhibaato u geystay oo ka soo baxay hay-ad dowladeed oo dhibaato u geysta dad muwaakiliinteenna ah dhibaato dastuuriya dhibaato ciqaaba dhibaato magdhow u geystay laakiin annagu dacwo maamul waxaan u soo furannay dhinaca ciqaab uma soo furan dhinaca dastuur uma soo furan dhinac maamul aan soo furannay oo ah dhibaatooyinka gaaro xagga dhaqaalaha ah xagga sumcadda ah xagga waktiga ah xagga maxay aheedee in magdhow laga sameeyo oo maxkamaddu horta aan codsanay inay soo saarto arrintaasi horta sharci darre khalada magu ahayd mase ma ahayn waxaan weydiisanay maxkamadda sida qoraalkeena ku qoran go'aankaas iyo wixii ka ratimay sharci darre ma yihiin mase ma anaga waxaan usnaa sharci darre tahay go'aankaas waxaa ka ratimay waa go'aankaas ka ratimay yaa aniga dhibaato noo geystay oo dhibaatooyinka aan sheegnoo dhan marka waxaan rabnaa
waxaan u malaynaa galka waa ku jira qoraalkaas waxaan jeclahay inuu galka ku jiro haddii loo bahdana waa soo gudbinaynaa annaga waxaan rabnaa inaan ka doodno qoraalkaas iyo dhibaatada maamul oo noo geysto dacwadeennana waxaan ku soo salaynay qodobka 5aad faqraddiisa 3aad xarafka ba ee xeerka nabadgelyada xeerka nidaamka garsoorka ana qodobka 5aad faqradda 3aad xarafka ba xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka 10aad faqraddiisa 2aad ee xeerka madaniga Soomaaliyeed oo intaba cadeynaya dacwadahaas maamulka inay awood ikhtisaas u leedahay maxkamadda sare dalka annagoo soo qaadana qodobadaas yaan ka soo dacwoonay qaraarkaas qaraarkuna waa qaraar hay'ad dawladeed waa sax waxa uu la dhaqmaa qolada ekaawo iyo qolada kale ay tag laakiin waxa amar lagu siinaa maxay ahaydey shirkadda diyuuradaha Blue Sky oo ay saarayeen mawkilinteen qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyo la fuliyay isku mar ay hayeen hal saac u dhaxaysa waxaan ka cabanayno qaraarka waxay ahayd 24 saac ka hor in la soo saaro ama markii la soo saaro 24 kadib inuu dhaqan galo laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadda uu dhaqan galay isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqa markiiba anaga marka waxaan ka cabanayno waa go'aankan ama notama lagu magacaabo ama qaar wax kasta lagu magacaabo laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray dhibaatooyinkaas aan ka soo dacwoonno marka annaga xaq u leh inaan maxkamad dastuuriya furanno oo qodobadeeda qaadano inaan furno maxkamad ciqaab oo qodobadeeda qaadano laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul qodobadeedana waa soo qaadanay codsigeennana waa kana oo ay ku qoran tahay waxaan kaloo hadda inaan soo gudbin aan rabnay haddii dacwada noo furanto magdhowga iyo khasaaraha na gaaray iyo dhibaatada na gaartay magdhow aan codsanayno marka dacwadeenu saas ay u caddahay ku salaysan tahay qodobadii maamulka muxuu ahay qaraarkaasna aan ka dacwoonayno haddii qaraarkaani uusan ahayn qaraar laga dacwoo karo qaraar maxkamadeed qaraar naqanaya ma jiraba haddii qaraarka u khuseeyo shirkadaha ma saameylehen mawkilinteena ma saameylhen shacbiga Soomaaliyeed oo 2 maalmood u fadhiyay inay diyuuradda raacaan oo 22 goostay tikidhada 22 la xareeyay subaxnimada hore body bag goostay boorsooyinkooda la xareeyay u fadhiyay inay raacaan qaraar la soo saar waan lagu fuliyay waana cadeynaynaa qaraarka wuxuu yahay saacadda la soo saaray saacadda la fuliyay cadeynan u haynaa marka laakiin waxaan rabnaa horta inaan cadeyno in muxuu ahay dacwadeena ay saas ku salaysan tahay qodobada ku salaysan tahay ujeedaduna ay saas tahay dabeecaddeeduna ay saas tahay maxkamaddu waa mahadsan tahay hadduu wax ku jiray saaxiibkay waa mahadsantahay waxaad ku darsamay jiraa maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ka jawaabo sortaaga ay garyaqaanka guud soo gudbiyeen garyaqaanka guud mudane guddoomiye garsoorayaal dacwadeenna waa dacwo maamul waana caddahay waxa aan ka dacwoonaynana waa go'aan maamul soo baxay lana saxiixay 22 bishii 9aad 2019 mudane guddoomiye go'aankan iyo garsoorayaal wuxuu ku soo baxay oo lagu socodsiiyey dadkii ay saaraayeen dadka aan qareenka u nahay muwakkiliinteena wuxuu ku yeeshay saameyn dacwadaas marka waxay noqon kartaa maamulkaas go'aankaas maamul ee soo baxay waxaa ka dhalan kara dacwo ciqaabaa ka dhalan karta hadduu geystay faldambiyeed uu ka dhashay waxaa ka dhalan kara sidoo kale go'aankaas maamul oo soo baxay magdhow ayaa ka dhalan kara oo dacwo maamul ayaa laga furo karaa waxaa ka dhalan kara jebin dastuur ayaa ka dhalan karta oo maxkamad dastuur ay qaadayso annagu ciqaabna ma aanan aadin oo beenaal ma aanan aadin dacwada aan furanay waxaa waaye dacwad maamul ah saldhigeeduna uu yahay go'aankii ka soo baxay hay'adda duulista go'aankii ay soo saartay go'aankaasoo saameyn dhaqaale mid maxaa la yidhaahdaa niyad jabineed mid hantiyeed mid waqti dhumiseed
mid qarasheed intaba ku yeeshay muwakkiliinta sababtaas ayaan u furanay dacwada maamulka waxaan u aragnaa inay tahay dacwad saxa waafaqsan sharciga hay-addii ama maxkamaddii ku shaqo lahaydna laga furay is-hortaagga ay soo gudbiyeen ama ay ka dhawaajiyeen xafiiska garyaqaanka guud waa mid aan isleenahay siday annaga nala tahay dacwadan lagu hor istaagayo loona diidaayo in cadaaladda la gaaro lagu diidaayo dad muwaadiniina Soomaali ah sifo sharciya ku baxayay ku duulayay wax dhiba iyo wax problema aan wadan ayaa la hor istaagay la joojiyay dhaqaaqoodii sifo sharciya ayadoo loo marin ayadoo taasoo ka soo horjeeda qodobo dastuuriya ka soo horjeeda iyo kuwa kale intaba haddaba mudane gudoomiye waxaan ku sii adkaynaynaa dacwadan waxay ku socotaa sifo sharciya maxkamaddu ku soo gashay sifo sharciya ay ku hortaallaa sababta ay u samaynayaan is-hortaagaana waxaan isleenahay oo keli ah waa in dacwadan ay jaha wareeriyaan aysan ku socon sifadii sharciga ahayd ee ay maxkamaddu ku soo gashay waa mahadsantahay maxkamadda sharafta leh aad baad mahadsantihiin maxkamaddu waxay qaadan doontaa haye wax yar oo faahfaahinaan rabaa inaan ku daro ku noqon maayo saaxiibkay madaxa qareennada cabdullaahi wuxuu yidhi sharciga iyo ogol horta anigu waxaan ka mid ahay xubnaha qiimaynta qareennada mana ku jirto qof shaqaalaha haddii sharcigu cabdullaahi u ogolaado anigana waa ii ogolaanayaa garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacan u ogolaanayaa arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan haba yaraatee cabdullaahi markuu keenaynayne ma u malaynaya inuu soo gudbiyo warqad ruqso ah muwaadiniinta soo codsanayso lamid ah hortaasan cabdullaahi aniga shakhsiyan walama dirirsan laakiin xaqow asagoo helay aniga inaan hela waayo oo qareen dawladda ah markaana dawladdu u shaqaynayn waa inaan dad difaaci karo garyaqaan guud arrintaa waad sheegtay maxkamadda ku aan ka gaadhi doontaa wax cusub haddii aad arrintaa waad ka hadashay cabdilaahi inuu shaqaaleeyeen kale maxkamadda go'aan ka gaadhi doonta haddii aad ku darayso wax cusub oo ka duwan horstaaga aad sheegtay taas ay maxkamadda ku ogolaatay arrintan oo nootimka oo aan ahayn go'aanka maamul ee dacwadu ku salaysan tahay waxay ku socotaa kambaniyada go'aanka maamulna markuu soo baxo ciduu toos ugu socdaa cidda uu tooska ugu socdo ayay hadduu dhib u geysta ka dacwoon karo haddii marka ay jirto dan dadban marka dadkan dadban lihi xaq u male inay dacwad keenaan maxkamadda go'aankaas waa usoo gudbinaya maxkamadda haddaysan haynin waxa waaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kambaniyada la hadlayay dadka mataqaana muwaadiniinta lama go'aanka laga dacweyna kaas waaye go'aanka lagu sheegayo waa notum waxaa lagula hadlayaa kambaniyada waxaana lagula hadlayaa 24 saac ka hor inay soo qaataan subaxii uu soo baxay 6 diyaaraddu waxay bixisay galabtii diyaarado badan diyaaradii maalinta dhoofeen waa kuwan oo soo dalbaday mataqaana raacay maxkamad hay'addu mas'uulka ka ah nabadgelyada hawada go'aanka soo saaray marka waxa waaye arrintaas marka annagu ma qabno inuu go'aan maamul yahay marka maxkamaddan u deerin maxkamadda nooga aqoon badan waa mahadsantihiin jumcaale maxkamaddii anaa u sheegay in ruqsadeeda ay taallo meesha inuu hubiyo keliya laga rabo laakiin waxaad moodaa inuu maxkamad aniga ila taagan yahay ila korayo taas maxkamadda si caddaynaysa waa sax arrintan anaga waxaan leenahay go'aan maamul oo dhibaato u geystay muwaadiniin oo aan ka soo hadalnay waay waxaan ka dacwoonayna maxkamadduna waa u soo qorannay waa naga qabatay waa loo gudbiyey kama soo jawaabin jawaabta kuma soo darsanin go'aan maamul ma ah ee wuxuu ku soo darsaday difaaca hay-adda marka waxaan leeyahay wuxuusan soo qorin hadda iyo ku baraarugin waxa u qoran iyo waxa anaga noo qoran oon maxkamadda keennay aan ka doodno maxkamadda waa mahadsantahay waa mahadsantihiin maxkamaddu waxay qaadan doontaa daqiiqado kooban oo ay ku qaadan doonto qolka showrka si ay go'aan uga gaadho is-hortaaga ay soo jeediyeen xafiiska garyaqaanka guud aad baad u mahadsantihiin
bismillah maxkamadda sare showr kadib ay ka gashay is-hortaaggii saddexda qodob ahaa ee uu soo jeediyey garyaqaanka guud ee dowladda oo uu ka koobaad ahaa nooca dacwadda ka labaadna ahaa inaanu jirin qaraar maamul oo kama dambays ah oo saamayn toos ku leh dacwoodayaasha iyo ka saddexaadna uu ahaa in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda showrkaa kadib maxkamaddu waxay go'aansatay labada qodob ee hore dacwaddan inay tahay dacwad maamul isla markaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo duluuca dacwadda marka qaraarka is-hortaagaasi uu soo jeediyey garyaqaanka guud maxkamaddu waa diiday is-hortaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dowladeed isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro bayroolka dowladda maxkamaddu waxay go'aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwaddan isla markaana dacwoodayaasha ay difaacaan qareennada kale ee haysta wakaaladda gaarka ah ay ka haystaan dacwoodayaasha marka waxaynu u gudbaynaa duluucda dacwadda jimcaalana dacwaddan waa ka baxaya waa mahadsantii jimcaale waa maxkamad jimcaale maxkamadda go'aanka waa gaadhay okay. jimcaale adigu maadaama ood ka baxday qareennadii hawshaas waxay u taallaa qareennada kale inay ka hadlaan marka waa mahadsantahay maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay inay noo ogolaatay inaan u gudubno duluucda dacwada maxkamadda sharafta leh iyadoo mahadsan maadaama doodeenii koowaad ay ku dheeraatay is-hortaaggii ay soo gudbiyaan dhinaca kaleeta iyo ka jawaabidoodii qareen ka mida qareennada nala shaqaynayana ay ka joojisay dacwada maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inayna siiso waqti kale oo ay dacwada dib noogu dhigto si aan xuquuqda dadka aan matelno ee maxkamadda horteeda aan ku matelayno noona soo wakiisha dacwadan aan u difaacno si hufnaan ku jirto si waafaqsan qodobka 59 xeerka madaniga Soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay dacwadan dib noogu dhigto si aan dulucda ugu soo diyaar garowno waqti kale haday maxkamaddu naga ogolaato maasanta maxkamadda sharafta leh بسم الله الرحمن الرحيم محكمة شرفت الله ما سنتهي waxaan rabaa inaan codsiga saaxiibkay maadaama waxa la difaaca yihiin xuquuq oo dad xaqood la difaacayo qaraankii saaxiibkayna laga joojiyey maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in si aan u difaacno si hufan oo maaragtay ku jirto hufnaan in maxkamaddu daanis ayna siiso si aan uga soo tashanno inaan soo buuxino booskiisii inaan sii wadno dacwada maxkamadda sharafta loo imaasanta اسمعي حد maxkamaddu waa mahadsan tahay annaga waxba kama qabno in duluucda la galo haddii ay maxkamaddu aragto inay mataqaanaa qareennadu waxay soo jeediyeen ay mataqaanaa taas laftigeeda annagu waxba kama qabno in dacwadda ay qareennadu soo dhammaystirtaan si loo gaaro cadaalad marka waa haddii dacwadda la wadana waa wadaynaa hadday maxkamaddu aragto in la joojiyo oo dib loogu dhiganayo waxba kama qabno
aad iyo aad bay mahadsan yihiin dhinacyadu maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay u soo kordhisaan qareennada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddaa si ay u soo gudbistaan qareennada ay u soo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay ku soo dhammaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xidhantay